waxaa jira siyaasiyiin ka jeeda Somaliland oo caqabad ku ah wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya iyo midowga labada dhinac. waa su'aal ay dad badan isweydiinayaan jawaabtana looga fadhiyo dawladda federaalka. haddaba yaa ka mid ah siyaasiyiintaas aan marnaba raaliga ka ahayn inay isku yimaadaan Somaliland iyo Soomaaliya? waa marka koobaad xildhibaan wasiir Maxamed Cabdi Maareeye, xildhibaan Xuseen Carab Ciise, xildhibaan Caashe Koob iyo xildhibaan Mustafa Qodax. inkasta oo ay jiraan siyaasiyiin badan oo ka soo jeeda gobolada waqooyi, haddana kuwan waa shakhsiyaadka aanan doonin inay midoobaan Soomaaliya iyo Somaliland. haddaba maxay tahay sababta xildhibaanada ka soo jeeda Somaliland gaar ahaan Burco ilaa Hargeysa ay aad uga dhex ololeeyaan gudaha Soomaaliya iyagoo xukuumadda qayb ka ah? aan soo qaadana wasiir Maareeye. waa xildhibaan ka soo jeeda gobolka Togdheer, wuxuu inta badan qayb ka yahay xukuumadihii soo maray Soomaaliya. mar kasta oo uu banaanka ka istaago nidaamka dawliga ee markaasi jira, wuxuu si toos ah ugu ololeeyaa aragtida qayb ka mid ah Somaliland oo ah inay goosato. Somaliland waa ogtahay dal uu ahaa oo 1960 ka qaatay xornimadiisa Ingiriiska. wuxuu la midoobay 1 July dal kale oo Soomaaliya la dhihi jiray oo xornimadiisa ka qaatay Talyaani. haddaba maxaa bedela marka uu xil helo? muxuuse u dhaleeceeyaa kuwii uu shalay u ololeynayay? shacabka iyo madaxda reer Somaliland oo runtii ah meel ay ka soo jeedo wanaagna la jecelahay, waxaan kula talinayaa buuqa iska daayay oo la imaada siyaasad iyo talo aad kula jaan qaadi kartaan isbeddelka siyaasadeed iyo dhaqaale iyo amni ee ka socda geeska Afrika iyo adduunka. tani waa danaysi siyaasadeed oo ay dhammaantood ka dhex wadaan gudaha xukuumadda iyo nidaamka dawladda. haddii ay labada dhinac midoobaan, wax dana uguma jiraan dhammaantood, oo waxaa dawladda qayb ka noqon doona kuwa ka aqoon badan hawshana looga maarmi karo. haddaba si aysan taasi marnaba u dhicin, maxay sameeyaan marka uu wada hadal soo dhawaado? maba arkaan uu fursad iyo marxalad iyo xaalad saamaxaysa inay Soomaaliya imika wada hadal ay Somaliland la furto oo wax ku kala goosanayaan inay geli kartaan oo mubaarku waxa Soomaaliya marka ka hadlayo. ma aha oo kaliya marka wada hadal soo dhawaado, balse maxaa dhaca marka dawladda Soomaaliya ay ka hadasho Somaliland iyo aayaheeda? farmaajo ayaa tagaya Hargeysa. waxaan arkaa arintaas inay arin lagu degdegay tahay, arin lagu khalkhalgelinayo runtii bulshada iyo Somaliland nabadda iyo dawladnimada ay samaystay tahay kala fogeynaysan ummadda. haddaba tani waa caqabada ugu weyn ee gudaha Soomaaliya ka haysata midnimada Soomaaliya. siyaasiyiin matala Somaliland ma ahay waddanaystayaal kursigooda ilaashanaya. dawladda hadda jirta kuma baraarugsana dhagarta ay wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland u maleegayaan wasiir Maareeye iyo xulafadiisa. waxayna ku abaalmarisaa Maareeye xil sare